dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dib u abaabuleysaa ciidamadii ka tirsanaa BSF ee iyaga markaasi looga soo awood roonaaday dagaalkii ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo isla markaana xilligan ku sugan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibrahim Maxamed Maxamuud waxay kormeereen xero ee markaasi ay si wadajir ah uga sugnaayeen ciidamada danab ee markaasi ku sugan koonfurta magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug iyo ciidamada BSF. waxaynu dala wadaagi doonaa xogaha macluumaadka iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay oo aynu ka helayno kulankan ay saraakiishan iyo sidoo kale mas'uuliyiintan ay la kulmeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. marka hore soo dhawaada saaxiibayaal, taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 bisha 8 ee Agoosto sanadkuna waa 2026. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibrahim Maxamed Maxamuud iyo wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi waxay u tageen ciidamadii ku soo jabay dagaalkii ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. ciidamadan oo ku jira xero ciidan oo ku taalo koonfurta magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug ayaana sidoo kale waxaa laga dareemi karaa wajiyadooda niyad jab iyo sidoo kale qaabkay ugu soo fashilmeen dagaalkii hore ugu dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo isla markaana ciidamada maamul goboleedka Puntland ay kula wareegeen xeradii iyo sidoo kale saldhiggii ay markaasi ay lahaayeen isla markaana ay deganayeen. laba qorshe oo waaweyn ayayna wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibrahim Maxamed Maxamuud ay ula kulmeen ciidamadan iyo sidoo kale saraakiishan. labada qorshe waxay tahay kow in la mideeyo ciidanka danab ee jooga koonfurta magaalada Gaalkacyo iyo ciidamada BSF isla markaana la mataaneeyo. waxaa dib loo abaabuli doonaa loona qorsheyn doonaa howlgal kale oo ay si wadajir ah u fuliyaan ciidankan isla markaana dib looga fuliyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aynu helayno waxay dhinaca kale intaasi ku darayaan in la qorsheynayo in dib loola wareego xeradii ciidamada ee markaasi ay ka deganayeen waqooyiga magaalada Gaalkacyo isla markaana haatan ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa maamul goboleedka Puntland. waxaa sidoo kale la diyaarinaya la isku dubridi doonaa abaabulkan iyo sidoo kale ciidamadan waxaana diyaargarowgii ugu dambeeyay loo xil saaray saraakiil gaar ah oo iyaga markaasi ku sugan koonfurta magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. laba qorshe oo waaweyn ayay dowladda federaalka Soomaaliya dib uga fakaraysaa oo la xiriira kow in dib markaasi loogu laabto xeriyada ciidamada iyo goobihii kala duwanaa ee muhiimka ah sidoo kale istiraatiijiga ah oo ay hore markaasi ciidamadan ay u deganayeen. haddaba qaab noocee ayaa dib loogu laaban doonaa xerooyinkan iyo fariisimahan waa su'aalaha inta badan la isweydiinayo, laakiin waxaa sidoo kale la shaaciyay in la kala qaatay waajibaad in la isfaray amarro culus in sidoo kale dib loo howlgelinayo ciidamadan. ciidamada xerada ee markaasi ay kormeereen wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibrahim Maxamed Maxamuud kuma filna oo kaliya Puntland in ay weeraraan suuragal iyo sidoo kale macquul ma noqon karto oo ay xeradaasi markaasi ay la wareegaan. laba arrinba suuragal ma noqon karto haddii aanan xeeladan iyo istiraatiijiyadan wax badan laga bedelin ayaana sidoo kale la leeyahay. midda koobaad waxa ay tahay in ciidamadan aysan aad u tiro badnayn oo ay yihiin ciidamo kooban isla markaana aynan suuragal lahayn in ay weerar ay qaadaan oo ay Puntland ay weerar ku qaadaan in fariisin weyn oo hore markaasi ugu sugnaayeen iyaga oo dhowr boqol askari ah in ay Puntland ay kala wareegto haatan in ay markaasi iyagu ay baxaan isla markaana si fudud ay xeradaasi kula wareegaan waxaa la leeyahay suuragal iyo sidoo kale macquul midna maahan. midda labaad waxaa sidoo kale la leeyahay niyad jab iyo sidoo kale waxaa ka muuqanaysa in ciidankan aysan haynin moraal iyo niyad ay markaasi ay ku weerar tagaan isla markaana saldhig ay markaasi ku qabsadaan. laakiin ila kala duwan ayaa sidoo kale waxa ay nala wadaageen in ay jiraan qorshe kale oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay. qorshahaas oo ah in ciidamo kale oo dheeraad ah laga qaado xeradii dhawaan lagu tababaray ee lagu magacaabo Xanan Buure
oo ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana ciidamadaas qaarkood la geeyo halka ay haatan ku sugan yihiin ciidamada BSF iyo ciidamada danab si wadajir ahna markaas ciidamadan ay noqdaan kuwa iyaga u wada howlgala isla markaana duulaan wadajir ah u qaado taasoo iyadana ah qorshaha kale oo ay haatan si wadajir ah markaas ay u wada diyaarinayaan mas'uuliyiintan isla markaana hadafka iyo ujeedada ugu weyn waxay tahay in dib loogu laabto goobihii istiraatiijiga oo muhiimka ah wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibraahim Maxamed Maxamuud kormeerkooda waxa uu qoseeyay in dindin iyo in ciidamada la isku dabarido ciidan xaanbuur laga soo qaado iyo kuwan ayaa la isku dari doonaa waxaana dib loogu laaban doonaa xirada BSF oo ku tiilay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug isla markaana halkaas ayaana qorshe ugu weyn waxa uu yahay in ay dib ay ula wareegaan waxaa soconayso daabulida ciidamadan oo iyada markaasi la qorsheynayo maalmaha soo aadan in la daabulo isla markaana la geeyo koonfurta magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug isla markaana dib loogu diro goobaha kala duwan oo ay hore ugu sugnaayeen isla markaana qorshahan waxa uu yahay mid si weyn haatan durba markaas looga shaqeynayo oo ay si wadajir ah markaasi ay u wadaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo iyagana ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug haddaba maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso in ay mar kale ay dib ugu laabato xariyahaasi suuragal iyo sidoo kale macquul ma noqon kartaa in xirooyinkaasi ay markaasi dib ay ugu laabato ama ay ugu laabato dadka qaarkood waxay leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya markii hore hadii ay difaacan waysay isla markaana ay ka hortagi waysay duulaanka Puntland ee ku aadan xiradaasi ciidan hadda suuragal iyo sidoo kale macquul ma ahan in ay weerar ku qaado xiradaasi oo ay dib ay ula qabsato waxaana sidoo kale ay kala kulmi kartaa jab kale ayaana sidoo kale la leeyahay laakiin dhinaca kale dadka qaarkood iyaguna waxay sidoo kale ay leeyihiin dowladdu hadii ay istiraatiijiyad iyo qorshe dhab ah markaas ay keento waa ay la wareegi kartaa xiradan isla markaana wax badan kuma duwanaan karto oo macquul ma noqon karto cid markaas hortaagi kartana dowladda federaalka ee Soomaaliya ma jirto laakiin waxa muhiim ah dowladdu inay markaas la imaato qorshe dhab ah oo la xiriira in dagaalkan uu markaas noqonin mid markale fashilma ayaana sidoo kale in la leeyahay laakiin Puntland iyadu dhinaceeda waxay markaasi ka warhelaysaa in uu soconayo abaabulkan iyo sidoo kale isku dubaridan ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wado isla markaana xirooyin ciidan uu ku yaalo koonfurta magaalada Gaalkacyo ayuuna xilligan diyaar garowgan uu ka soconayaa Puntland si dhow ayay ula socotaa in dhaqdhaqaaqyadan safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Gaalkacyo laakiin haatan uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ayaana qorsheedu ugu weyn waxa uu yahay in qayb ka mid ah Puntland la wareego isla markaana gacanta lagu dhigo saraakiil gaar ah ayayna dowladda federaalka Soomaaliya u xir saartay qorshahan iyo sidoo kale isku dubaridan ciidamadan taasoo iyadana ah tallaabada kale oo ay xilligan markaas ay qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya haddaba waxyaabaha ka soo kordho abaabulka iyo sidoo kale isku dubaridan ciidan oo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wado wararkeena dambe ayaan idinku wadaagi doonaa